السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو dhawaada walaalayaal, magacaygu waa Cabdullaahi Maxamuud. Maanta waxaan qaadanaynaa price ceiling. Waxaan ku jiray government intervention. Qaabka waxa weeye ay dawladdu suuqa waxa weeye saameynta ugu yeelato. Marka waxa kamid ah price ceiling. يعني dawladdii baa faragelin suuqa ku sameynaysa iyadoo isticmaalaysa price ceiling. Price ceiling marka muxuu yahay? Price ceiling waxa weeye in alaaba product baa soo saaraysa matalan tusaale ahaan adigu suuqaad waxa keenaysa caanaad keenaysa caanaha waxa weeye halkii koob waxa ku keenaysa $1 dawladdii baa waxay samaysay price ceiling bay samaysay oo waxa weeye meesha ugu sareysa aad wax ku iibin karo waxa weeye bay ku tiri 0.7 waxa weeye kama badin karo 0.7 kama badin karo waa maximum price ka waa 0.7 bay dhaheen waxa weeye waa ina 0.7 ku iibsa caani marka maxaa dhacay dawladdii haddii sax samaysay waxa dhacaya in caanaha dad u keenaysa aad yareynayso caanihi oo ay tiin soo aragnay oo supply-ga haddii alaabtii uu keenayo suuqa waxa weeye qiimaheedii yaraado intuu supply gareynayo suuqa keenayay waa yaraanaysa haddii waxa weeye la dhaho waxa weeye alaabtii waa qaaliyoon alaab badan u keenay marka in alaabtii ay yaraanayso qofka caanaha aad keenaysa suuqa ay yaraanayso sidoo kaleeto barayskii oo hoos u dhacayo haddii barayskii hoos u dhacona maxaa dhacayo isna waxa dhacaya in dadka gadashadoodii siyaadayo awalkor $1 baa dad iska normal gadanayo halka $1 ku gadanayo hadda se waxa weeye dad badan baa gadanayo u baahan maadaama waxa weeye 0.7 laga dhigay oo dawladdii price ceiling samaysay okay price ceiling ku marka waa saas in waxa weeye qiimaha dad u siineysay oo market equilibrium ku ahaa oo waxa weeye meel ka hooseysa ay dawladdu intay tiraahdo waxa weeye inta maximum ka siin karo waxa weeye waa 0.7 meel ka hooseysa ay ku calaamadiso ku dhahdo waxa weeye inta in ka badan ma siin karo weeye price ceiling marka price ceiling waxa weeye wuxuu leeyahay faa'iido darro leeyahay oo badana waxa weeye ma fiicna oo dawladdu way iska ilaalinay price ceiling ka sameeyaan kuma badna okay marka price ceiling waa maximum price ka government-igu u dejiso producerska dadka waxa weeye shirkadaha leh wax produce garay suuqa wax keena inay ku iibiyaan product-gooda matalan waxay nidhi $1 ku keeni jiray sideen waxa weeye price ceiling bay u sameeyeen 0.7 waa ina caaniga ku keentaa okay haddii marka caanihi 0.7 qofkii ku keeno maxaa dhacaya vendor in waxa weeye gadashadii alaabta ay kor u kacayso in alaabta waxa weeye inta suuqa la keeni jiray uu yaraanayo in price-kii uu yaraanayo marka dawladdii saasi gacan ugu yeelatay suuqa ugu yeelatay marka faa'iido darrada price ceiling haddii dawladdu samayso waxa kamid ah in waxa weeye uu dhacayo shortage caanihi yaraanayaan awalka hore caano badan xoogaa fiican baa la keeni jiray caanihi way yaraadeen sidoo kale dad badan ba haddana u baahnay waxa weeye shortage aad u badan baa markay jira caanihi oo yar iyo dadkii oo badan marka shortage buu sababaya sidoo kale low quality awalka hore waxa weeye caano nadiif ah waxa weeye dadku ka kataan ba keeni jira hadda se waxa weeye dadkii waa kugu batay waxa laga yaabaa in biyo ku soo dadhaad wixii low quality uu noqdo product kastana waxa weeye wax soo saar kastana waa asaas weeye hadhow waxa weeye alaabtii low quality ba noqonaysa caanaha biyo ku soo daraysa oo kale sidoo kale wuxuu sababi karaa dead weight loss kaasi oo ah in dhaqaalihii waxa weeye hoos u dhac ku yimaado dhaqaalihii si fiican u shaqeyn waayo oo waxa weeye maadaama waxa weeye producerskiina waxa weeye in yar suuqi keenayaan iyagina faraxsanayn waxa weeye iyagii minus ku jiraanin dadkii waxa weeye xiibsanayana wixii aanay heleen shortage yahay marka waxa weeye dhaqaalihii bahalkii si wax ku oola uu shaqeymayo iyo sidii la rabay okay halkan graafkan marka wuxuu tusayaa price ceiling awalka hore intaana ku iibin jiray dadkuna intaana waxa weeye intaana keeni jiray price-kana dadka kaga iibin jiray oo market equilibrium ba hadda se dawladdii baa waxay samaysay price ceiling samaysay halkan ku dhigto tiri inta in ka badan ma siin karo marka maxaa dhacaysa in inta keeni jiray quantity supply-kii intaana awalka hore keeni jiray in hoos u dhacdo aad inta keentaa okay intaas keentay Soomaa awalka hore dadku dhimaandigoodu waxa weeye iibkoodu intaas iibsan jiray hadda se qiimihiisa hoos u dhacay ilaa intaan iibsanaya quantity-ga waxa weeye alaabta inta looga baahan yahay suuqu intaanay gaadhin
dadkii intaana rabaan inay gaarsi inay waxa weeye iibsadaanin adigina waxa weeye awalka hore waxa weeye intaana keeni jiray saa la yiri waxa weeye price yar ku keen saa intaana soo saadhay marka maxaa dhacay shortage baa jira suuqii intaana la keenay alaab intaan leeg baa la keenay intaana waa looga baahan yani waxa weeye alaab badan waa 50 xabba waa la keenaya 150 xabana waa looga baahan yahay suuqii marka shortage buu sabaya price ceiling marka waa asaas in dawladdu waxa weeye price equilibrium ki meel ka hooseeya ay ku dhigto ku tiraahdo waxa weeye inta in ka badan masiin ka dhac marka khasaaraha badan ay soo sheegnayna uu keenaa ugu horeeyo shortage in alaabtii suuqa ku yaraato in quality-ga hoos u dhaco in waxa weeye awalka hore customer service baa la sameyn jiray maadaama hadda waxa weeye dadkii iska badan yihiin customer service wax regardness oo jirin marka waxyaalahan dhan buu sabaa marka casharkan maanta intaas ku soo gabagabeynaya waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahanteen. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.